Welcome back guys. Soo dhawaada magacaygu waa Max. Kaasoo doonaya maanta inaad la shargarayo cryptocurrency-ga khaasatan kambanida sameeya mining-ka qoda cryptocurrency-ga sidoo kalena sameeya trading si ay u soo saaraan benefit and faa'iido. Kaasoo markaan doonaya mid ka mid ah passive income-yada ama dakhligada ugu waaweyn oo anigu online-ka aan ka sameeyo expert asset oo ah mid ka mid ah kuwa aan si fiican u maalgashtay ayagana trade sameeya mining sidoo kalena sameeya si ay u soo saaraan benefit faa'iido kaasoo markaas ay doonayaan inay la shargareeyaan dad walbo dunida ku nool dacalaheeda si ay faa'iido u soo saaraan ayaguna ay u helaan faa'iido. Midkaas waa expert asset kaasoo ah midkii ugu weyn aan dakhliga aan ka helo. Intaan idinla shargareynin waxaa jiro 3 sababood aan ku doortay expert assets inuu noqdo mid ka mid ah passive income ama dakhligada joogta ah aan ka helo sidoo kale maalin walbana ay ku soo dhacdo account-kayga 5 maalmood marka laga reebo 2 maalmood oo maalmaha Isniinta iyo Axadda. Okay, wuxuuna isiyaa maalintiiba 1% oo markaas account-kayga ku soo dhacda oo account-ka koowaad ee ku soo dhici doonto waa profit wallet tan kadibna waxay u soo gudbi doontaa habeenka Isniinta oo kala ah waxaa loo soo gudbiyaa account-kayga oo ah wallet cash oo taas oo automatic haddaad doonayso inaad la baxdo aad la bixi kartid. Qiimaha ugu yar oo la bixi karana waxa waaye $55 minimumka. haddii aad doonayso marka inaad maalgashatana waxaa ugu yar $100 kaasoo ah binary plan-ka oo maalintiiba laga siin doono $1 haddaad dhigato $100 haddaad dhigatana $200 waxaa heli doontaa $2 maalintiiba haddaad dhigatana $500 maalintii $5 heli doontaa haddaad dhigatana $1000 maalintii waxaa heli doontaa $10. anigu waxa waaye waqti xaadirkan oo account-kayga waxaa active ku ah binary plan-kayga ah $350 kaasoo maalin walba aan ka helo $3.5 iyo $1.5 oo ah binary plan-ka ah oo company-gu wuxuu leeyahay system oo markaas la dhisto binary ah 2 legs ah. haddii aad doonayso marka inaad dhinacaasi systemka aad dhisato qaab kuu fudud aad ku dhisi karto kale oo kula shargareyn doona. haddaa keliya aad tahay qof markaasi investment ama doonaya inaad maalgasho soo faa'iido u helo waxaa maalgashan doontaa educational package oo xirmooyin oo markaasi as education ah lagu bari doono kale qaabka traderka u dhaco kale qaabkay u sameeyaan iyo faa'iidooyinka markaas aad traderka ka heli karto kale ayagoo markaas traderka sameeya forex iyo cryptocurrency-ga. Okay, intaan u gudagelin ka hor macluumaadka dheeraadka ah 3 xabbi aan sababtaan ku doortay expert asset inuu noqdo mid ka mid ah investment-iga midkii ugu weyn anigu markaas oo aan maalgashtay 3 sababood jirto. sababta koowaad waxa waaye dollar mar walba dollar average costing mar walba wuxuu sii doonaa USD dollar ay account-kayga ku soo dhacayso adan markaas aan ku soo dhici doonin oo kale Bitcoin oo kale BTC aan ku soo dhici doonin automatic waxa account-kayga ku soo dhacaya dollar haddii uu Bitcoin-ka price-kiisa hoos u dhaco iyo hadduu sare u kacabo. faa'iidooyinka koowaad aan ku doortay kaasaa ka mid ah maadaama hadda waqti xaadirkan aan ujeedaan Bitcoin price-kiisa waa down waaye $8,700 $8,700 waaye after January 2018 waxay ahayd 15,000 drawdowna wuxuu ahaa 10,000 hadda drop oo sameeyay hoos u dhacay. sababta koowaad waxay tahay hadduu Bitcoin price-kiisa hoos u dhacay hadduu sare u kacabo anigu waxaan ka helaa lacag dollar maalinba account-kayga ku soo dhacda. sidoo kale waxa waaye qodobka labaad aan ku doortay waxaa ka mid ah ninka iska lah oo markaasi oo sidoo kale trader ah oo 12 years experience 12 sano khibrad ayuu leeyahay. sidoo kale wuxuu mining ku sameeyaa cryptocurrency ayuu mining ku sameeyaa. qodobka saddexaadna waxa waaye waxa uu kale uu leeyahay oo kale faa'iidooyinka markaas aan ku doortay. qodobka saddexaad ah they trade forex ay trade gareeyaan si ay faa'iido u soo saaraan. forex maxaa la dhahaa waa lacagahan oo USD-ga iyo euro oo kale isbedelada lagu sameeyo ay faa'iido sidoo kale ku soo saaraa. marka company-ga mining uu sameeyo kale xaruntiisa waxay ku taalaa Poland
mining waa kana sababta aan reasonka ku doortay si oo faa'iidada miningkaas ugu soo saaro ayuu qayb ka mid ah percentage ila daawo waa mining waaye ay markaasi ku sameeyaan faa'iidada ka soo saaraan ay qodaan bitcoin marka doonaya in la soo saaro kale waxay u baahan tahay electricity oo kale u baahanaya supercomputers u baahan iyo mining ninka kambaniga iskale waxa waaye Patrick xaruntan Poland waaye xaruntan halkan farms okay dia doonayso marka inaad sign up gareyso linkiga hoos iskaga sign up gare haddii aad tahay qof cusub please subscribe my youtube channelkayga si aad macluumaad badan oo passive income ka la xiriira aan kula soo socodsiiyo haddii aad tahay qof markaasi hore channelkan ugu xirnayna like saar haddii aad su'aalo haysana leave me hoos igala soo xiriir wixii su'aalo ah marka qaabka ku helo idinla share doonaa daily profitkayga iyo qaabkaan u helo iyo inta markaasi anigu aan ka tirsanahay anigu 2017ka August ayaan sign up gareeyay 2017 ilaa waqti xaadirkan waxa waaye maalin walba waxaa dakhli ah $1 ayaa ku soo dhacda qaabka ugu soo dhacda waa kan okay $2 bar $2 attrition senti $2 iyo bar oo sidoo kale 0.9 $1 wax dhiman 9 senti $2 bar $1 $2 iyo bar $1 xilliga waxa waaye June ilaa iyo waaye waxaan rabaa inaan ka dhigo kale 12aad 2017 ilaa iyo waqti xaadirkan bisha 24 August kaasa filter ida waxaad arki doontaa dhammaan faa'iidooyinka markaas anigu aan ka sameeyay waa kan $2 bar $2 bar $2 bar $2 bar $2 bar waa qaabka oo helo waaye oo daily profitkii ku soo dhacda maalin walba ah oo 5 maalmood sidoo kale waxa loo yaqaanaa account-kii kugu soo dhici doonto 5 maalmood waa profit wallet waa qaybtan kale waxa waaye mining waa haddii aad markaas aan invest gareysato mining waxa ugu yar oo kale 250 250 ayaan marka mining kan kaliya invest gareysanayso waxa helaysaa cryptocurrency mining-keeda helaysaa not trader-ka meelaysa trader-ka waxa laga helaa qaybtan profit-ka qaybtan kalena waxa waaye 5 maalmood kadib account-kana lagu soo wareejin doonaa laba mid ku sameyn kartaa waa la bixi kartaa waxa ugu yar $55 haddii kalena waxa waaye cash to transfer haddii mar labaad inaad maalgashi aad ku sameyso waxa soo diri doontaa lacagta meeshan kugu jirta waxa soo diri doontaa qaybtan oo ah cash wallet marka wuxuu hadhow aad ku sameyn kartaa haddii aad dib aad doonayso inaad u maalgashato mar labaad investment sameyn kartaa qaybtan waxa waaye withdrawal waa anigu lacag waan la baxay lacagta ugu hore la baxayna waa $100 lacagta markaas anigu aan maalgashatayna waa 350 maalintii waxaan helaa $5 $3 iyo bar oo iga soo gasho maadaama aan dhigtay 350 aan dhigtay waa $3 iyo bar iyo $1 bar oo ah binary plan oo markaas aan systemka aan dhiso as a team to binary haddii aad doonayso marka qaabkee loo dhisaa qaabkee dakhli fiican u sameyn karaa teams oo dhisi karaa you can contact me linkiga hoose my Facebook-giga ee laga soo xiriiri kartaa okay taas waaye haddaan ku tuuso qaabka anigu oo cash transferka lagu soo diro markaas aan doonayo inaan dib oo la baxo kale oo qaybta cash profitka waa this transferka kale oo every week oo kale oo habeenkii isniin soo galayso kale dhammaan lagu soo dirayo guys information-kii waaye haddii aad doonayso marka inaad contact badan ay la soo sameyso please waxay kala soo xiriirtaa Facebook-giga kaas aad wixii su'aalo aad markaas qabto igala soo xiriiri kartid iyo macluumaad badan markaas aad doonayso
facebookgayga waa maax efuture kaasoo aad macluumaad badan haddii aad doonaysa inaad igala ogaato ee la soo xiriiri karti wixii su-aalaha qabta ah si gooni ah ay la share garey karti meel baa joogtaan guys bye bye